Leila waxaa u dambeeyay inay canaantaan hablihii saaxiibada ay la ahayd iyaga oo ku leh qays balantii ayaad uga baxday aad dhigateen berigaad yaryareedeen. Leilana waxay ku doodaysaa in aanu qays keligii jaceylka ugu gaar ahayn ee Leila iyadaba ay la dareemayso dhibaatada, waayo haweenku waxay ka yimaadeen feertii nebiyullaahi aadam korkiisa nabadgelyo ha ahaatee. Leilana waxay tiri sida tan: dhulkuu joogo qays baa aniguna jiraayo, niyadiyo jirkii baa lala kala jiciirto, midba jiha fogaatuu waayah la joogaa. Jarar baa iteedho lagu jaray dhexdeena, jacayl xaasid baa jira dadka kala jixaansoo midba jeel ku oodaa. Jawi kala fogaadiyo midba jihuu ku tuuraa. Haddaan aadan jirkiyo jaansaarka feeraha loo jeexin xaawo la jirsii nafteedana, haween duni ma joogeen, dumar lama jaleeceen, qurux looma jeeleen, jacayl lalama heeseen, dhallinyaro isjamatiyo ma jireen lamaano. Leila waxaa soo food saartay hami iyo walaac oo waxay ka daashay qays u yeeridiisii. Markii ay dayn weyday hadal hayntii qays ayaa ninkeedii ku xanaaqay oo dharbaaxo xanuun badan wejigeeda kaga dhuftay oo 3 dalqadoodna u raaciyey. Intay soo carartay ayay gurigoodii ciirsi mooday. Ehelkeediina habeen iyo maalinba way garaacayeen. 30 maalmood afkeeda waxba maysan saarin oo aan ka ahayn caano hal laga soo lisay oo hal mar keliya ka bato, ilaa ay ka soo jeestaan indhaheeda buluuga ahaa meel fog oo ay u marsamaan indhakuusha rabbaaniga. Qays waxa uu maqlay in Leila si xun loo garaacay, markaas ayuu u dulqaadan waayay oo yidhi: halkay kaa jabsay aniguna jirkii jeexjeexmayo, jiradaad qabtaa ana igu jirtaa lee jaciiqiyo. Leila jirkii aniga aan jeclaa, jeedalkii lala dhacay, alloo yaanu jirin joogina dunida. Leila waxay aaday allihii abuuray xaggiisa oo way dhimatay. Markaas ayaa inta la meedhay la aasay. Qays noloshiisa halkee u dambaysay. Markii loo sheegay geeridii Leila, qays dunida way ugu dhammaatay rajaduu ka lahaa. Qays waxa uu tagay gurigii ay ku nooleed ay ku dhimatay si uu daawado calaamadihii iyo raadadkii ay kaga tagtay guriga. Qays intaa wixii ka dambeeyay waxaa soo wajahay kurbo iyo walaac xad dhaaf ah. Maalmihii u dambeeyay noloshiisa waxa uu sheegay walaashiisa Hinda in aanay dib loogu arkaynin dunida, iyada oo yaaban ay arrintii u sheegtay ilma adeeradii iyo walaalihiisa. Markaas kadib waxaa laga baadi goobay buuraha dushooda iyo togoga. Meesha waxay kula kulmeen islaan da' ah oo degan halkaa. Qays ayay weydiiyeen, markaas ayay ugu jawaab celisay: maalin waliba cunto ayaan dhirtaa u geyn jiray. Shalayto markaan damcay in aan halkii cuntada u dhigo, waxaan ku arkay cuntadii shalay oo taala. Dib ayaan iskaga soo laabtay, mar dambana ma arkin. Hore ayay socodkii u wateen ilaa ay gaareen tog dhagaxaan badan. Waxa aynu ku arkeen meedkii Qays. Way soo qaadeen ilaa ay guriga dib ugu soo celiyaan. Qays iyo Leila waxay qabriga u kala horeeyeen 24 habeen oo keliya. Kadib dadkii oo idil waxa ay maqleen dhimashadii Qays. Ma jirin mid ooya ama tu ooyda oo loogu oohin badan yahay maalintuu Qays geeriyooday. Kama aysan kulmin Qays iyo Leila nolol raaxo leh adduunka korkiisa. Qays waxaa lagu aasay Leila dhinaceeda midig. Markii muddo la jooga ayaa waxaa soo daahiray mucjiso aan hore loo arag. Qays iyo Leila labadooda qabri ayaa waxaa ka soo baxay 2 geed oo intay kor u baxeen fooda isla galay oo isku marmay, oo waxaad moodaa 2 qof oo hab is siinaya. Halkaa ayay noogu dhammaatay qisadii xanuunka badnayd ee Qays iyo Leila.